wasiirka wasaaradda madaxtooyada jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Maxamuud Xaashi Cabdi iyo wafdi culus oo hogaaminayo oo ay kamid ahaayeen xubno kale oo wasiir ah agaasimayaal wasiir dawlayaal barasaabka gobolka Sanaag iyo mas'uuliyiin kale ayaa waxay si rasmi ah uga qayb galeen jaamacad laga dhagax dhigayay degmada Garadaga galbeedka gobolka Sanaag jaamacadan ay hirgeliyeen aqoon-yahanada iyo qurbajo ka soo jeeda degmada Garadaga lana magac baxday Leeds University oo noqonaysa tii ugu horeysay ee ay yeelato degmada Garadaga xiriir fogna la leh jaamacadaha Ingiriiska ayaa waxa ugu horeyntii halkaasi ka hadlay maamulka heer degmo ee degmada Garadaga oo ugu horeeyo maayirka degmadaasi iyaga oo soo dhaweeyay jaamacadani waxayna sheegeen inay wax badan ka tari doonto aqoonta gobolka iyo guud ahaanba Soomaaliland taasoo ay sheegeen inay tahay jaamacadii ugu horeysay ee noocaas laga hirgeliyo geyiga Soomaaliland ayna soo saari doonto aqoon-yahano badan da'yarta degmada Garadaga iyo deegaanada hoos yimaada ayaa iyana si weyn u soo dhaweeyay jaamacadan iyaga oo sheegay inay meelo fog u aadi jireen aqoonta heer jaamacadeed waxaana ugu horeyntii halkaasi ka hadlay madaxda heer degmo oo si wada jir ah u soo dhaweeyay waxaan aad iyo aad uga mahadcelinaynaa ilaatinka ay noogu yimaadeen ama naga soo qayb galeen dhagax dhiga xafladda qiimaha iyo qaayaha leh ee jaamacadda lagu dhagax dhigayo iyo maxadka qaaliga ee diinigaaba aad ballaaran goobaheeda codbixinna waa ogtihiin ilaa iyo dhowr iyo 10 ilaa 20 goobood ayaa ka dhiban xagga codbixinta oo aad iyo aad runtii in loo qiimeeyo ay ahayd waa dhulka abaartu aafada badan ee ballaaran ay ku saamaysay run ahaantii guud ahaanba gobolku boqolkiiba 80 baa dadka xoolo ka baxeen waxaan odhan karaa halkan boqolkiiba 95 ayay ka baxeen waa degmada ugu badan ee abaartu ay saamaysay horta marka hore waxa weeye jaamacadda ictiraafado warqadeedii muxuu ahaa wasaaradda waa aan ka seenaa waa taas waxay ku ictiraafeen ile magacu qura maahe markii aan u geynay waxa lagu dhigayo iyo qorshaheeda akaademi ahaaneed iyo habsocodkeeda ayay muxuu ahaa la dhaceen dabadna yidhahdeen muxuu ahaa warqaddii waa idin siimay magaca aan u bixinay waxa weeye muxuu ahaa Leeds University Leeds waxay ka joogtaa waxaa la yidhahda afqaad leadership and development of science waxa weeye jaamacaddii soo saaraysay madaxda iyo sayniska dadkii yaqiinay oo farsamada gacanta gobolka waa less than 1% ee dib ugu soo noqda gobolka ee jaamacad soo dhameeya marka waxaan rajaynaynaa inay jaamacadan u fududayn doonto arday kasta oo dugsi sare ka baxay oo awoodi kari waayay inuu u tago jaamacad Buruuciya Hargeysa iyo Boorama iyo Meelshe inuu halkan jaamacadiisa ku sii wato jaamacadaha noocan oo kale ah waddanka Mareykanka oo ka yimi top 10 universities marka la yiraahdo waxa ugu horeysa jaamacadda Harvard University iyo Yale University oo second waxa weeye waa jaamacadaha ay ka soo dhex baxaan leadershipka waddanka Mareykanka hogaamiya jaamacadana waxa weeye leadership of development and development of science waxa soo saaraysa scientists-kii Soomaaliland iyo Afrika ma yeelan lahayd iyo leaderadii ay Soomaaliland iyo Afrika ma yeelan lahayd anaga wax ku haysanay sanadkii dhawey hadda soo muddo 5 sano ah dugsiga sare ardayda ka baxda ayaa gobolka Sanaag ugu sareysay 4 jeerna dugsiga hoose dhexe saadareerka ayaa ugu sareeyay gobolka Sanaag sanadkii dhawey kale hadda soo yar qaato gobolka Sanaag 13 arday baa waxay ka heleen scholarship 9 arday gadag baa lahayd waana 9kii gobolka ugu sareeyay jaamacadaha heleen jaamacadaas waa Itoobiya qaarna Addis Ababa ka dhigtaan qaarna Jigjiga ka dhigtaan carruurta seegtay waxbarashada ama abaaru haleeleen kulli maalin weyn baan anigu arkaa Soomaalidu waxay tiraahdaa haddii Ilaahay xoolo kula maago dadkeedu ku siiya Ilaahay hadduu aqoon kula maago dadkeedu ku siiya Professor Ibrahim Barranuur iyo Khadar Cilmi Barre oo dream kan lahaa iyadoo dhinaca kalena ay ka hadleen mas'uuliyiinta wafdida uu hogaaminayo wasiirka madaxtooyada gabagabadina uu soo xiray wasiirkaasi halkaasina lagu dhagax dhigay jaamacadaasi Ibrahim Barre iyo reer Barranuurba kaalidii kaga jireen horumarka iyo
muxuu ahaa uu wax ka qabto rag badan oo howlaha waxbarashada gar adag waxaan mar labaad qirayaa oo guddoomiyaha degmada ku raacsanay inay ka mid ahayd gar adag waxbarashadeedu gobolka Sanaag meeshii ugu horhana qaaday dugsiga ilaahay ka rajaynayaa inuu ilaahay ina joojo iyadoo sawirka halkaa ku qoran uu run yahay oo naxariga ka jarayno iyadoo aan fogay Faraxa Cabdi Nuur telefishinka caalamiga ee Home Cable TV degmada Gar Adag.